الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين goor dulmiga iyo gardarooyinkaasi taagnaayeen buu ilaahay khayr muslimiintii dulmanaa usoo baxshay oo xamsa bin cabdimudallib islaamay allaha ka raali noqde wuxuu islaamay dhammaadkii sanadkii lixaad ee nebinimada bishii dulxija wuxuuna alle sabab uga dhigay islaamidiisa abujahal baa maalin wuxuu soo maray rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo safo jooga markaasuu faduuliyey oo xumeeyey rasuulkuna waa isaga aamusay oo kelmad uma uu dallicin markaas buu abujahal inta dhagax qaatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam daqray oo uu dhiig ka keenay dabadeedna waa isaga tegay oo wuxuu aaday naadigii quraysheed oo kacbada u dhowaa oo iskala fariistay odayaashiisii waxaa jirtay haweenay cabdullaahi bin jadcaan abbaan u ahaa oo joogtay gurigeeda oo safo u dhowaa oo arkaysay sida abujahal rasuulka u gelayay sala allahu calayhi wasalam saa waxaa soo maray xamsa oo ugaarsi ka yimi oo labisan qaansadiisii markaas bay u sheegtay sida abujahal falay markaas buu carooday wuxuuna ahaa inanka quraysh ugu cadcad oo dagaalka ugu daran isagoo taabacaya buu dhaqaaqay cidna lama uu istaagin oo wuxuu isu diyaarinayay inuu abujahal waxyeeleeyo markii uu la kulmo markii uu masjidka soo galayna intuu madaxiisa istaagay buu si cara leh ku yidhi waryaama wiilka walaalkay baad caayaysaa anigaa diintiisa haysta markaas buu qaansadiisii madaxa kala dhacay oo si daran u daqray markaas baa waxaa kacay oo usoo hiiliyay rag bani maqsuum ah rag bani haashim ahina waxay dooneen inay siiyaan kaalmo laakiinse abujahal baa yidhi war abuu camaara ka leexda wiilkii walaalkii baan si fool xun u galaye xamsa markii hore waxaa islaamidiisa sabab u ahaa ficilo uu ku diidanaa in xigtadiisa meel looga dhaco oo la liido dabadeedna alle baa laabtiisa furay oo sidadii lagu kalsoonaa buu qabsaday muslimiintiina waa ku cisoobeen goor ciriiriga lagu jiro oo dulmigii iyo qooqii gaaladu meel walba hareereeyey baa ilays kale oo kii ka if badan alle muslimiinta usoo saaray oo waxaa islaamay cumar binulkhadaab allaha ka raali noqde oo 3 maalmood ka dambeeyey islaamidii xamsa rasuulkaana sala allahu calayhi wasalam ilaahay u baryay sida laga soo wariyay xadiis macnihiisu yahay allow islaamka ku xooji labada ninkii aad jeceshahay cumar binulkhadaab ama abujahal binu hishaam cumar baana sida muuqata ahaa midka mudnaa siismada marka fiiro loogu noqdo waxyaalihii islaamidiisa laga wariyey waxaa kuu soo baxaya in islaamidu si tallaabo ah qalbigiisa usoo gashay intaanan taas u gudagelin waa inaan tilmaanaa qiiradii iyo shucuurtii uu lahaa allaha ka raali noqde wuxuu ahaa nin dabiic adag oo awood badan muslimiintuna wax badan bay dhibaato kala kulmeen waxaana naftiisa ku dagaalamayay dareemo isdiidan oo gees wuxuu ka xurmaynayay caadooyinkii ay aabayaashii iyo awowyaashii jidaysteen geesna wuxuu ka waday shahawaadkii sakhradda iyo cayaarihii uu caadaystay geesna wuxuu la yaabanaa adkaanta muslimiinta iyo sida ay ugu dulqaadanayaan dhibaatooyinka caqiidadooda kusoo gaara waxaa intaa usii dheeraa shaki qof kasta oo caaqil ah kusoo dhacayay oo ahaa in waxa islaamku dadka ugu yeerayo uu ka sarreeyo oo ka hufan yahay waxyaalaha kale oo dhan taas baana mar kasta oo uu kaco oo xanaaqo shiiqinaysay oo hanjabinaysay waxyaalihii laga wariyay islaamidiisa oo la soo koobay lana isku celceliyay habeen buu wuxuu soo bariyay meel gurigiisa ka baxsan markaas buu xaramka yimi oo daaha kacbada soo galay mise nabiga sallallahu calayhi wasallam baa salaad u taagan oo akhrinaya suuratul xaaqa markaas buu cumar qur'aankii dhageystay oo sida uu isu saaran yahay la yaabay markaas buu hoos isula hadlay oo yiri waa gabiyaa sida qurayshtii sheegtay markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam akhrintiisii waday oo soo gaaray wuxuu yiri markaas baa islaamku qalbigayga ku dhacay taasi waxay ahayd markii koowaad intii islaamidu qalbigiisa ku beerantay waxaase weli naftiisa kala jiidanayay oo ku loolamayay ficilooyinkii jaahilnimada hidihii uu qabatimay iyo diintii aabayaashiis oo maskaxdiisa ku weynay sidaa daraaddeed wuxuu iska sii watay dagaalkii uu islaamka kula dirirayay danna kama uu gelin dareenka qalbigiisa ku taxaaraa
dabcigiisa qalafsanaa iyo cadaawadiisa xaddaafka ahaydna uu u hayay islaamka iyo dadkiisa ka hor islaamidiisa waxay geyeysiisay inuu maalin inta seeftiisa xirtay rasuulka sallallahu alayhi wasallam aaday isagoo doonaya inuu dilo oo ka takhaluso. Nucaym bin Cabdullah oo isla jilibkiisa reer Cadawi ka mid ahaa baa la kulmay oo ku yiri xagee u jeedaa Umarow? Wuxuu yiri waxaan rabaa inaan soo dilo Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wuxuu yiri oo sidee uga amaan helaysaa bani Hashim rasuulka jilibkiisa iyo bani Sahar oo rasuulka reer abtigi ah? Umar wuxuu ku yiri waa ku jeedaayo diintaadii aad haysatay baad ka baxday. Wuxuu yiri wax la yaab leh ma ku tusaa Umar oo walaasha iyo seediga ah waa ka tageen diintii aad haysatay. Markaas buu iyagii soo aaday isagoo inuu baabi'iyo rabaa, waxaana la joogay markii uu iimaanayay Khabaab ibn al-Arat oo hadba inta uu yimaado quraanka u akhriyi jiray, markaasna gacanta ku hayay warqad ay ku taal suuratu Taha oo uu akhriyay. Khabaab markii uu maqlay shanqartii Umar uu guriga ku dhuuntay. Faaduma Umar walaashiina warqadii bay qarisay. Umarna markii uu guriga u soo dhawaaday wuxuu maqlay akhrinta. Markii uu u soo galayna wuxuu yiri maxay tahay hunuudan aan idinka maqlayay? Waxay yiraahdeen ma jiraan, waxaan ahayn sheeko aan ku sheekaysanaynay. Wuxuu yiri malaha diintiinii baad ka baxdeen. Wuxuu yiri seedigi Umar oo balka waran haddii xaqu meel aan diintaada ahayn uu ku jiro. Markaas buu Umar seedigii ku booday oo si xun isugu taagay. Walaashii baa u timid oo ka kicisay. Markaas buu iyadiina hal mar kala tuuray oo bitiyay oo madaxa dhiig ka keenay. Markaasay iyadoo caraysan tiri maxaa jira Umarow? Haddii xaqu meel aan diintaada ahayn ku jiro, waxaan qirayaa ilaa xaq ah aan alle ahayn inuusan jirin, Muhammadna uu yahay rasuulkii alle. Markii Umar ka quustay oo arkay dhiigga walaashii ka socda buu ka shalaayay oo isku xishooday oo yiri isiiya qoraalkan aad haysaan aan akhriyo. Markaas bay tiri walaashii adigu fadara baa tahay, cid aan daahir ahayna ma taabato ee ka soo qubayso. Suu kacay oo soo qubaystay, dabadeedna inta qoraalkii qaatay buu akhriyay bismillaahir rahmaanir rahiim. Markaas buu yiri waa magacyo daahir ah oo wanaagsan. Misna wuxuu akhriyay gaadada hore ee suuratu Taha. Wuxuu yiri maxaa hadalkan ka wanaagsan oo ka sharaf badan? War Muhammad itusiya. Markii Khabaab maqlay hadalka Umar buu guriga ka soo baxay oo yiri bishaarayso Umarow, waxaan rajaynayaa in Alle ajiibay ducadii nabigu, waayo waxaan maqlay isagoo leh Allow diinta ku cisee Umar bin al-Khattab ama Abu Jahl bin Hisham. Rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu joogaa guri ku yaala safo hoosteeda, halkaas oo uu kula qabsado kulamo qarsoodi ah asxaabtiisa. Markaas buu Umar seeftiisii qaatay oo labistay. Wuxuu sii socdana gurigii buu isa sii taagay oo albaabkii buu garaacay. Nin baa istaagay oo daldaloolka albaabka ka eegay. Wuxuu arkay Umar oo seefi u xiran tahay. Markaas buu rasuulka sallallahu alayhi wasallam u sheegay. Rasuulku sallallahu alayhi wasallam u sheegay. Saaragii baa isu ururay. Markaas buu Xamsa yiri war maxaa leedihiin? Waxay yiraahdeen waa Umar. Markaas buu yiri Umar ah irida ka fura. Haddii uu khayr rabo waa siinayna, haddii uu shar rabana seeftiisan ku dilaynaa. Rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam gudaha buu ku jiray oo waxyi baa ku soo degayay. Markaas buu Umar u soo baxay oo qolkii ugu yimid oo kolleetiga iyo galka seefta si xooga ugu qabtay oo weydiiyay sababta booqashadiisa. Markaas buu yiri Umar waxaanu imid in aan rumeeyo Allah iyo rasuulkiisa iyo waxa uu ka keenay xagga Rabbigii. Waxaan qirayaa inuusan jirin ilaa xaq ah aan ahayn Allah, adiguna aad tahay rasuulkii Alle. Sidaas buuna u islaamay. Dadkii sarta joogay hal mar bay takbiir ku dhufteen. Allahu akbar masjidka laga maqlay. Umar wuxuu ahaa nin karti leh oo aan la hawaysan karin. islaamnimadiisuna waxay gaaladii ku riday qas iyo lab iyo dulli iyo liidasho. Muslimiintiina waxay huwisay ciza iyo sharaf iyo rayn. Ibnu Isxaaq wuxuu Umar ka wariyay
inuu yidhi markii aan islaamay waxaan xusuustaa dadka maka qofkii rasuulka ugu darnaa oo u nabca waa abujahal. markaas baan u imid oo albaabka ku garaacay. markaas buu ii soo baxay oo igu yidhi ahlan wa sahlan. markaas baan idhi waxaan u imid inaan kuu sheego inaan rumeeyey allah iyo rasuulkiisa muxamed sallallahu alayhi wasallam oo ka siistay wixii uu xag alle kala yimid. markaas buu xoog u xiray albaabkii isagoo si xun ugu dhaleecaynaya tilaabadaydaas waxaan la aqoon ahaan wejigaygana weji baas ahaan. xaqiiqdii islaamnimadii cumar waxay ku abuurtay dhaqaajin weyn maka gudaheeda, heer dadku qaar ay ku dhaleeceeyaan murtad ahaan ka baxay diintii oo gaaloobay. sidaa oy tahay iimaankiisa ma ay gilgilaynin, si taas ka duwanna wuxuu ku adkaystay mowqifkiisii xitaa haddii ay taasi kalifayso in qudha laga gooyo. mushrikiinta quraysh oo deegaanyo ah isa soo bahaystay baa gurigiisii soo aaday iyagoo raba inay dilaan. albukhaari wuxuu ka wariyey cabdullaahi binu cumar inuu yidhi goor cumar guriga joogo oo cabsanayo baa waxaa u yimid alcaas bin waa'il asahami, camar bin alcaas aabihii oo isku joog sabra ah qaba iyo qamiis gacmo iyo qoor xariira leh. bani saham buuna ka dhashay oo aan wakhtigii gaalnimada gaashaanbuurahayn. markaas buu ku yidhi maxaad leedahay? wuxuu yidhi qoonkaagu waxay sheegeen inay idilayaan marba haddii aan islaamay. wuxuu yidhi jidkuguma haystaan, kuma dili karaan. alcaasna waa iska tegey intuu cumar ammaan siiyey. markaasuu wuxuu la kulmay dadkii oo ciidda oo dhaqaaqay la moodo. markaas buu yidhi xaggee rabtaan? waxay yidhaahdeen ina khadaabkaas diinta ka baxay. wuxuu yidhi ma aadi kartaan. markaasay dadkii iska laabteen. dhinaca muslimiintana mujaahid wuxuu ina cabaas ka wariyey inuu yidhi waxaan weydiiyey cumar binulkhadaab sababta faaruuq loogu bixiyey. wuxuu yidhi xamse baa iga hor islaamay 3 maalmood dabadeedna wuxuu ka sheekeeyey qisadii islaamidiisa oo uu dhammaadkeedii ku yidhi markii aan islaamay waxaan iri rasuulkii allow sow xaq kuma taagnin haddii aan dhimanno iyo haddii aan noolaanaba. wuxuu yidhi haa, kii naftaydu gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartaye xaq baad ku taagan tihiin dhimateena iyo noolaateenaba. markaas baan iri buu yidhi marka isqarintani maxay tahay? kii xaqa kugu soo baxshay baan ku dhaartaye waa baxaynaa. markaasaan baxnay annagaa 2 saf ah oo midkood xamse ku jiro midna anigu ku jiro oo gurdankayaga makiinad waxshiida la moodo. sidaas baanuna masjidka xaramka ku galnay. markaas bay quraysh aniga i eegtay oo xamse eegeen. markaas baa waxaa ku dhacay murugo aan weligood ku dhicin. maalintaas buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ii bixiyey magaca faaruuq, almacnaa kala saare. ibnu mascuudna wuxuu oran jiray kacbada agteeda kuma aanu tukan karin jeer uu cumar islaamay, ilaahay raalliha ka noqde. suhayb bin zinaana waxaa laga wariyey inuu yidhi markii cumar islaamay diinta islaamku waa quwowday oo si cad baa loo faafiyey oo kacbada agteeda baan koox koox u fariisanay oo ku dawaafnay oo cidiina maagtaan ka cadgoosanay oo waxayna yeeshaan ka gudanay. ibnu mascuudna wuxuu yidhi sidii cumar u islaamay gunnimo ma aanu arag. walaalayaal darsigeennii halka ayuu inoo joogayaa. inta aynu darsi lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa ammaano alla iyo ismaqal dambe oo xiise leh.